inta la xaqiijiyay 3 ruux ayaa ku geeriyootay roobab mahiigaan oo ka daay deegaanka ka tirsan Somaliland iyadoo lagu jiro guud ahaanba waqtiyadii uu roobabka ka daayay gobolada Somaliland ayaa waxa maalmihii u dambeeyay ka daayay gobolada galbeedka Somaliland roobab la xadle kuwaas oo geystay khasaare dhimasho ah isla markaasina dadka qaar dooxyada soo rugmada ay qaadeen gawaari iyo dadkii saarnaa hadaba waxa la soo sheegayaa in dooxa huluuqeed ee degmada Arabsiyo uu qaaday gaari noociisa loo yaqaano markituuga isla markaasina halkaas uu ku geeriyooday wadihii gaariga balse la soo badbaadiyay dadkii iyagu saarnaa oo iyaguna sidoo kale dadka halkaas mariyay iyagu gaarsiiyeen wacyo fudud iyo kuwa waaweynba dhanka kale iyadana waxa la soo sheegayaa degmada Baki ee gobolka Awdal in ay halkaas roobab la xadle ka da'een isla markaasina oo halkaas danab roobka ka dhacay oo ku dilay 3 qof oo iyagu joogay degmadaasi Baki ee gobolka Awdal hadaba mar ay warbaahinta wax ka weydiiyeen maayir xigeenka degmada Baki ayaa waxa uu cadeeyay in ay 3 qof halkaas ku dhinteen oo danabkaasi roobkaasi aad u badnaynaa wuxuu ahaa qalab iyo dabayo dalabkii markaa wuxuu ku bilaabay meesha la yiraahdo xoori wuxuu ku dhacay dalabkii qoyskii waxa ku dhintay hooyadii iyo ilmihii oo haboon oo ilmihii labana waa dhaawac oo gurmad baan u dirnay in lagu sii socdo dhaxay ku sii jiraan baaskiiba ku maqan dalab labaad oo kala isla fartii ka dhacay meel la yiraahdo been oo xamadka iyo u dhaxaysa badkii waa ku dhintay halkaa tirada guud ee dhimasho waa 3 tirada guud ee dalabku ku dhacayna waa 5 waxaan u dirnay gurmad caafimaadka iyo caafimaadka ku sii maqan waa la gurmad lagu jiraa meesha telefoonku si daan lama dhaco marka kuwa xaq dibban ka soo jeedina wixii ka soo kordha imika laakiin intaan ognahay waxa dhintay 3 qof halka saacadan imika uu ku dalabku ku dhacay waxay xoori iyo baki waxay ku jiraan 6 kilomitir bay ku jiraan waxa kale u sii jirtaa meesha imika dalabku ku dhacay magaalada xoori bay 9 kilomitir iyo dhan sii jirtaa waxay loo jirtaa qiyaastii 7 kilomitir inta wada duubo roobabkani ayaa marka ay bilaabmaan waxa ay geystaan khasaare naf ah isla markaasina dooxyada waaweyn ayaa waxay qaadaan gawaarida iyagu halkaas ka gooshaya waxayna sababaan in ay dad badan halkaas ku dhintaan waa Boqor Axmed Cabdi Somali News TV Hargeysa